madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa maanta hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxa uu ka furay shirweynaha dhaqanka Soomaaliland kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland. shirweynahan oo socon doona muddo 2 maalmood waxa uu jeedkiisu yahay dhitaynta cilmiyeynta iyo horumarinta dhaqanka iyo afka. shirkan ayaa muddada uu socdo waxa lagaga hadli doonaa doorka dhaqanka iyo hidaha ee jiritaanka bulshooyinka, isbeddelka iyo burburka dhaqanka, saamaynta tiknoolajiyada ku leedahay dhaqanka, ilaalinta agabka dhaqanka iyo aasaarta qadiimiga ah, cilmi baarista afka, fanka iyo suugaanta. shirkan waxa ka qayb galay ergooyin ka socotay gobolada dalka, wadamada deriska, khubarada ka shaqeeya arrimaha dhaqanka, afka iyo hidaha, kuwaas oo isugu jiray culimo, abwaano, dhaqan-yaqaano, qoraayo, cilmi baarayaal, madax dhaqameed, xubno ka socday jaamacadaha dalka, laamaha dawladda, ururada dhaqanka iyo marti sharaf kale. ugu horeyntii agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Maxamed Xasan Cali Waji, agaasimaha waaxda farsamada ayaan Cabdirasaaq Jaamac, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdisalaan Maxamuud Ducaale Ilkaase iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Sheekh Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda shirkan. waxay sheegeen in dhaqanku yahay waxa isku keenhaya ee aynu kaga soconnahay ummadaha kale adduunka, iyagoo tilmaamay in jiritaanka ummadeed uu ku xidhan yahay hadba sida ay bulshadaasi dhaqankeeda ugu faraadeegto. waxaanu shirkan ujeedooyinkan ka leenahay waxa kamid ah waxaanu isweydiin doonaa waa maxay dhaqan, waxaan isweydiin doonaa qabiilka iyo qaranka sida loo kala furdaaminayo, waxa kaloo aanu doodaha iyaga ku jiri doontaan isweydiin doonaa madana madaxweyne mushkiladda ugu badan oo imika ah baraha bulshada iyo dhaqanka oo caqabadaha intii aanu wasaaradda joognay aanu aragnay dhibta dhaqankeena iyo nolosheena iyo amnigeena khatar ku ah oo soo korodhay oo muddo gaaban jirtay inay baraha bulshadu dhaqanka iyo diinta iyo amnigaba ay ku yihiin khatar. waxa iyadana doodaha noogu jiri doontaa oo iyadoo khubaradii aqoonta u lahayd afka Soomaaliga ay joogaan inaanu wax iska weydiino afka Soomaaliga iyo halku maanta taagan yahay halku 30 sano ka hor ama 40 sano ka hor taagnaa. runtii maanta madaxweyne farxad weyn bay noo tahay inaad nagu dhiirigeliso inaan qabanno shirweynahan dhaqan ee qaranku leeyahay. runtii wasiirku ama wasaaraddu waxay hadba tamirisaa ama tallaabsataa inta hogaaminta iyo siyaasadda hogaamiyahoodu uu siiyo oo u sii laandaayo ama uu siiyo space ay ku tallaabsan karaan. runtii madaxweyne waxaan kaaga mahadnaqaynaa in dhaqanku qiimaha uu kula leeyahay barnaamijkii xisbiga wadanina uu ku jiray in la abuuri doono maalin u astaysan fanka iyo farshaxanka Soomaaliland. taasay ka turjumaysaa madaxweyne inuu shirkani noo qabsoomo adiguna aad ku soo saari doonto maalinta qaran digreeto madaxweyne oo sidii aad ummadda u ballan qaaday dhaqanka iyo farshaxanka iyo fanka iyo fanaankuba ay daryeelmi doonaan haddii alla ka dhigo. mudane madaxweyne dhaqanku waa xabagta ummad isku haysa, waa waxa inaga dhaxeeya, waa waxaan kaga baadi soocannahay ummadaha kale, waa waxa sumadeena ah ee aan kaga soocannahay ummadaha kale ee adduunyada ku nool. jaamac muuse jaamac, agaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Sheekh Cabdiraxmaan Yaasiin Jaamac, imaamka mustajaamaca weyn ee Hargeysa duqa caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge iyo wasiirka arrimaha gudaha Cabdalla Sandheere oo halkaasi ka hadlay ayaa xukuumadda iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland uga mahad celiyay qabanqaabada shirweynaha dhaqanka. waxay sheegeen in dhaqankeena ay weerar ku yihiin dhaqano kale, sidaas awgeedna loo baahan yahay in si cilmiyana loo eego dhaqanka lana hirgeliyo akaademiyadda dhaqanka iyo hidaha, isla markaana manhajkeena sal looga dhigo dhaqankeena. markaadee odayaashii awoowayaashii waa fadhiya waxaan leeyahay nabigeena calayhi afdal salaatu wasalaam inna min ash-shi'ri la hikma. shicirku sida Bukhari iyo Muslim ku sugan waa xikmad, laakiin xikmaddaasi waxay nooga baahan tahay dalkeena inaynu ku midayno dadkiisa. waxay nooga baahan tahay xikmaddaasi dadkan inaynu ku xidhno khaaliqii abuuray. boqolkiiba 80 dhaqankeenu miyi buu ahaa. dhaqanku wuxuu isbedelay markii magaalada la yimi. waxaan aad u xasuustay maanta halkaa qalabkan ku soo dhaafay mixdin guriga iyaga ooli jiray oo khudradda iyo la noogu samay jiray 50 sannadood maan arag iyo dhiishii ciirta samay jirtay. waxaanu soo wadnaa sharci aanu golayaasha keeni doono oonu ku xakamay doono qabyaaladda oodaha goosatay ee fidmada ee intuu ni soo fadhiisto oo reer hebelow عين كاسين نوتي
ma shaqaynayso. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo furay shirweynaha heer qaran ee dhaqanka ayaa sheegay in farxad weyn u tahay inuu ka soo qayb galo furitaanka shirkan oo uu tilmaamay in looga gol leeyahay in lagu qiimeeyo halka aynu ka joogno dhaqankeena iyo sida aynu la rabno mustaqbalka. maanta sharaf weyn iyo farxad gaar ah ay tahay inaan ka soo qayb galo furitaanka shirweynaha dhaqanka heer qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland. waa madal aad u qiimo badan oo aynu isugu nimi inaynu dib u milicsano sooyaalkii dhaqanka ee aynu ka nimi isla markaana aynu fahamno waqtiga aynu joogno si aynu sawir buuxa uga qaadanno hanaanka ugu fiican ee aynu mustaqbalka u horumarin karno uguna faa'iideysan karno dhaqankeena hodanka ah. dhaqanku waa ruuxda bulshada, waa seeska abtirsiinaha iyo sawraca ummadda, waa dunta inagu tasha jiilasheenii hore si aynaan u kala amban, waa jiheeyaha inagu hagaya qiyamkeena, habdhaqankeennii iyo diinteennii. waa dhaqan xeer u dhalad ah oo aan sida bulshooyinka qaar dibadda laynooga soo dhoofin. waa dhaqan ku aroora sooyaalka nolosheenna, xoolo dhaqato, caqiidadeedana islaamnimo iyo qisaska ku duugan hiddaheenna oo ka turjumaya aataarta kumanaanka sano soo jirtay ee aynu ka soo gaadhnay awowyadeen. waa dhaqan caan ku ah sharaf dhowrasho, anshax wanaag iyo aqoon aad u qoto dheer, kaasoo weelkiisu ahaa afkeenna hooyo, gaar ahaan gabayadii iyo buraanburkii aynu awowyaasheen iyo ayeeyayaasheen ka soo dhaxalay ee ay noo kaydiyeen, oo ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee aanay hodannimada afkeennu u gurin. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa sidoo kale xusay in xukuumaddiisu ay dhiirigelinayso afka iyo dhaqanka, isagoo xusay in la qaban doono barnaamijyo wacyigelineed oo arrintaasi la xidhiidha. dhaqanka ummadeed wuxuu muhiim u yahay horumarka bulshada, waayo waxa uu sees u yahay kalsoonida, wadajirka iyo muwaafaqada bulshada dhexdeeda. waxa uu dhiirigelinayaa hal abuurka iyo curinta bulshada, arrimaha la og yahay inay lagama maarmaan u yihiin kobaca iyo horumarka ummadda. Soomaaliland waxay ku faani kartaa in dhaqankeedu uu kaalin guula keenay xilligii halganka, howlaha nabadaynta ee joogtada ah iyo xitaa marar badan furdaaminta arrimo siyaasadeed oo cakirmay. nasiib darro, maanta qabyaaladdu waa khatarta ugu weyn ee ay wajahayso dowladnimadeenna casriga ah iyo guud ahaanba bulshooyinka gobolka Geeska Afrika. si aynu taas uga hortagno, waxay xukuumaddu dhiirigelinaysaa isdhexgalka bulshada. waxaanu ka shaqaynaynaa in ubadkeenna aanu xilliga waxbarashada ku barbaarinno la dagaalanka qabyaaladda. waxaa la dhiirigelin doonaa barnaamijyo iyo ololayaal bulsho lagaga wacyigelinayo ummadeenna qabyaaladda. waxaanu xukuumad ahaan ilaalinaynaa hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliland, si gaar ah aataarta dhaqankeenna oo ka turjumaya hiddaheenna. sidoo kalena waxaanu dhiirigelinaynaa inaynu xoojinno nidaamka shareecada iyo dhaqankeenna ku aroora xallinta khilaafaadka, sidii halkan xeerbeegtiidu uga garnaqaysay, gaar ahaan dhulka ka durugsan goobaha uu garsoorka dawladdu aanu gaadhsiisnayn, innagoo mar kasta sees uga dhigayna sharciga iyo xeerarka dalka. waxaanu adeegsan doonaa xoojinta diblomaasiyadda dhaqanka
oo ah in bulshooyinka dunidu aynu barno dhaqankeenna hodanka ah iyo sida uu caawiyo dhaqankeennu saaxiibtinimada tala wadaagga derisnimada iyo iskaashiga si ay u fahmaan qiyamkeenna iyo jihada aynu u soconno mustaqbalka waxa kale oo halkan lagu soo bandhigay waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka aynu u leenahay cabdicasiis ciidiid cilmi warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa.